السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندي سلام يا دمانتينبا أدبان دي سو دوينيا ومقال كلا iyo fiidiyoyadii aynu kaga hadlaynay softwareka loo yaqaano Inchirad softwarekan oo aynu ku sheegnay inuu yahay kuwa loo isticmaalo in lagu create gareeyo fariisada aadka u khatarta badan leh muuqaalkan waxaa mar labaad ugu dhaliyay inaan ka sameeyo muuqaalkii hore oo xoogaa iska yar muddo inuuna aad u sii faahfaahsanayn midda kalena oo xoogaa iska yar ka koobnaa hadda waxaan rabaa inaan si guud mar ah iyo si guulgaar ah ba inaan u dul maro softwarekaasi waxa uu yahay iyo waxa uu ka dhex qaban karo iyo qaabka viruska uu sameynayo saameyntiisu intay leeg tahay softwarekaasaan insha allah videokeenu ama muuqaalkeenu ku saabsanaan doonaa ka hor intaan se idinla wadaagin softwareka waxaan idinla wadaagi lahaa waxa aan isticmaalaya iyo guud ahaan waxa ay yihiin waxaan isticmaalayaa waa attackerkaasi waxaan u isticmaalayaa system gaara ama computer gaara waxaan isticmaalayaa victimkaasina wuxuu noqon doonaa system operating gaara iyo computer gaara laabkayga dhexdiisa ayaa ku sameeyey dhammaantood waxaan ku isticmaalayaa virtual machine as a virtual ayaan u isticmaalaya waa computeriska khiyaaliya waxaan u isticmaalay virtualiska inaan ku create gareeyo softwareka loo yaqaano virtual boxka ayaan u isticmaalayaa si aan u create gareeyo dhammaan laabkaygana aan u sameeyo si aan uga digtoonaado inaan qof kale aan ataagareeyo oon ku tijaabiyo saameynta viruskan iyo inaan waxoogaa aqoonteena iyo skillkeena aynu ku tijaabino qof kale oo bini aadana ama computer kale oo inaan awood iyo ogolaasho inaanu haysan inaga dhexdeena ayaa iska samaysanayno computero iska virtual ah marka waxaan isticmaalayaa Windows 10 attackerka ayuu noqon doonaa ka weerarka qaadaya ayuu noqonayaa ka lagu qaadayo weerarkana waxaa noqon doonaa Windows 7 ka hor intaanan u sii gudagelin waxaan idila wadaagi lahaa waxay leeyihiin softwareda aan isticmaalayo iyo applicationka IP address attackerka IP addresskiisu waxa weeyaan 10.0.2.15 weeyaan haddaan hagan CMD aan soo furno waa 10.0.2.15 weeyaan waa attackerka waa ka weerarka qaadaya IP addresskiisa weeyaan ka lagu qaadayo weerarka magaciisana waxaa ku qoran Windows 10 ka lagu qaadayo weerarka waxa weeyaan systemkeena kale ee loo yaqaano Windows 10 ka isagana IP addresskiisu waxa weeyaan 10.0.2.5 weeyaan waana ka weerarka aynu ku qaadi doono haddii uu lahayd weerarkan iyo attackerna wuxuu noqon doonaa mid loo kala maaha mid si aan loo kala hayn ama mid internetka ah maaha waayahay ugu horreyn waxaan soo furanayaa softwareki aynu isticmaalaynay inaynu weerarkan ku sameyno softwareka magaciisa saynu hore u sheegnay waxaa loo yaqaanaa Inchirad hore edition weeyaan way fara badan yihiin noocyo fara badan ayaa jira mar labaad ayaan iska delete gareynayaa kani si aan ku cusub aan isagu samaysto kan ayaan extract gareynayaa extract ayaan leeyahay markaan extract gareeyo waxaad arkaysaa softwarekii inuu halkan kusoo dhacay waa kan applicationka aynu run gareynayno waxaa ku qoran Inchirad 0.7d ayaa ku qoran double click ayaan siinayaa waxay iga xusuusin mudan dhammaan antivirusadii iyo firewallkii labadaba waan ka xidhay antiviruska waan ka xidhay marka inta hore ee basiga hadhow tola ayaynu qaadan doonaa qaabka viruska aad samaynayso xataa internetka antiviruska oo kuu furan uu u dhaafo qaabab iyo skills loo isticmaala ayaa jira laakiin marka hore intaynu basic aynu iska nahay waxaan samayn doonaa antiviruskaas waan iska xidhi doonaa ugu horeyn saad halkan ka arkayso boort ayaa loo assign gareynaya waa marka ugu horeeya applicationka Inchiradki uu soo kaco wuxuu ku weydiinayaa boortiga la isticmaalayo boortiga aynu isticmaalayno ayaynu halkan ka gelinaynaa haddii aad rabto 62.5.2 ayaad isticmaali haddii kalena boorti kaloo ka duwan star ayaan leeyahay Inchiradkaygu iminka waa star garaysan yahay wuxuuna diyaar u yahay inaan virus aan ku sameeyo waay waxaan leeyahay halkan hoose waxaa ku qoran builder ayaa ku qoran builderka ayaan ku dhufanayaa builderka markaan ku dhufto windowgan ayaa ii soo baxaya waxaan dooranayaa dhammaan wixii aan u baahanahay sida inaan IP assign gareeyo IP addresskii viruskayga aan magac u bixiyo waxyaabahaas oo dhan ugu horreyn halkan saad ka arkayso waxaan gelinaynaa IP addresskaad gelinaysa waa keen waxa weeyaan waa 10.0.2.5 sideed ku helaysaa IP addresska waxaad ku helaysaa inaad CMD-daada aad ku qorto ipconfig markaad ku qorto waxaad helaysaa IP addresskaaga iyo gateway iyo subnetkii baad helaysaa okay inagu waxaan baahnay IP addresska
okay ip addressku waxa weeyaan 10.0.2.15 waa sax weeyaan boortiga aynu markii hore soo aasan gareynay 6522 waa kan boortigii halkan waa options aynu dooranayno registryga miyaa lagu daraya antiviruska automatically injiraadku si automatically ayuu antiviruska ugu dhaafi karaa waanad aasan gareyn kartaa viruskan qaabku u fudayo haddaad halkan aad tigta saarto macnaheedu waxay noqonaysaa markasta oo computerka aad attackerkaaga computerkaaga victimkaaga ah oo viruska uu ku jiro haddii USB la geliyo USB-daas viruska waa qaadaysaa haddii computer kale lasii geliyo viruskaas isna wuxuu noqon computerka kale la geliyana viruska waa qaadaya okay halkan ayaa haddii aad tigta saarto weeyaan waxaan u bixinayaa halkan magac ayaan u bixinayaa waxaan leeyahay magacaan u bixinaya waxa weeyaan waxaan u bixinayaa second torsion ayaan leeyahay second torsion markaan idhaahdo waxaan ku dhufanayaa halkan ay ku qoran tahay build halkan ay ku qoran tahay build ayaan ku dhufanayaa fileka laynoo sameynayo sorry halkan waa victim linkii weeyaan waa victim linkii victim link haddaad u baahato halkan ayaad ka gelin waa kan magaciisa halkan aynuga bixinayno magaciisa aan u bixinayo waxaan ka dhigayaa sidii hore victimka waynu ku naqaanay magacaa hore aan usoo bixiyey torsion ayaan leeyahay second torsion markaan idhaahdo typeka nooca laga dhigayo filekan aynu sameynay exe haddii aad rabto abk noocii aad rabto ayaad ka dhigan imika waxaan rabnaa inaynu ka dhigno application yar oo haddii windowska lagu rangareeyo windowska uu fahmi karo ayaan ka dhigaya halkeen ku safraynaya waxaan ku dhex safraynaya desktopkayga dushiisa so waxaan leeyahay save ayaan leeyahay desktopkayga ka dul raadi yes waa kan setup created successful okay ayaan leeyahay waa kan viruskaygii waa lii create gareeyey waxaan u dirayaa viruskayga targetkaygii ayaan u dirayaa waa ninkii targetkaygii ahaa ayaan u dirayaa viruskayga okay si aan ugu diro qaabo fara badan ayaa jira inaad USB aad ugu dirto email inaad ugu dirto taa markaa ayaynu ka hadli doonaa laakiin imika hab yaro fudud oo nagu diri kara ayaan isticmaalayaa raar ayaan ku xirayaa waxaan leeyahay okay raar markaan ku xiro okay aan idhaahdo waxaan leeyahay mar labaad ii soo furo halkaan dhex dhigayaa waxaan leeyahay halkaa folderkayga aan share gareeyo ayaan toos u geynayaa okay waa kan viruskii waa kan computerkaygii targetkaygii dariiqad kastaba aan ugu diree laakiin imika waan u diray waa kan viruskii okay waxaan ku sameynayaa sidoo kale extract ayaan ku sameynayaa waa kan viruskii waa kan muuqaalkan ayuu leeyahay muuqaalkan marka uu qof dee normally u rangareynaya ma jiro hadhow toole waxaynu samayn doonaa sawir baynu u ekeysiin doonaa pdf ayaynu u ekeysiin karnaa word baynu u ekeysiinaynaa insha allah hadduu ilaha idhaahdo laakiin iminka saa uu yahay ayaan ku qaadanayaa si aan idiin tuso okay haddaad kusoo noqoto attackerka haddaad dib ugu soo noqoto waxaad arkaysaa applicationkii waa kan halkan waxaa ku qoran macluumaad aada u muhiima viruskeena cid kasta oo rangaraysa macluumaadkooga halkan u soo galaya okay hadda waxba kuma jiraan laakiin kii viruskeena ayaan u tagayaa targetkeena ahaa double click inuu ka dhigay ayaan sidoo kale aan sameynayaa u rangareeyey kasoo qaad double click aynu ku sameyno ma jiro wax systemkaygii soo baxay oo leh application ma ogoshahay oo ma ku shuban sida aan ku naqaano softwareda markaynu ku shubayno windowska wax igu yiri ma rabtaa inaad softwarekan aad ku shubato ha ama maya ma jiro double click baan siiyey waxba ma soo bixin nothing waxba soo baxay ma jiro waa virus aad u cajiibay weeyaan okay laakiin haddaad ku noqoto windowskeeni maxaad arkaysaa waxaan helay hal connection ayaan helay victimkii haddaba dib haddaad ugu soo noqoto siad ku ogaanaysaa faylkii aan rangareeyey inuu rangaraysan yahay waxaad ku ogaan kartaa task managerka haddii aad soo furto ood u timaado halkan ay ku qoran tahay process haddaad u timaado waxaad ku arkaysaa fayl ku dhex jira oo magaciisa loo yaqaano second torsion viruskeenii weeyaan aad buu cajiib u yahay faylka kani okay haddaba laakiin waxaan uga adkaan karnaa haddii aan faylkan right click aan idhaahdo on ama end process aan ku dhufto connectionkaygu ka baxaya meesha uu ka baxaya toos buu ka baxaya aan ku tijaabiyo halkaa ka fiiri waxaan leeyahay right click
ama maya intaan ku dhufto ayaan leeyahay end process ayaan leeyahay si fiican u fiiri connectionkii waa baxay markuu rangareeyey maxaa dhacay waxba ma soo bixin waxba uu yar wareegay waxba ma soo bixin laakiin halkan hadda timaado waxaa dhacaya inuu soo galo si automatically yes waa kan waxaan helnay hal victim ayaan helnay hal targetkeenii hal qof ayaa rangareeyey qof ka rangareeyey magaciisii waa kan magacii aynu markii u bixinay second torchinka ahaa IP addresskiisii waa kan 10.0.2.5 magaca ku qoran computerka rangareeyey fayraskeena victim.pc ayaa ku qoran oo magaca ku soo qoray ayuu ahaa magacaasi sax ma yahay halkan aan ka soo check garayno waa kan yes magacaas waa sax weeyaan halkan kale waxa ku qoran waa date-kii weeyaan 9 umalayn maayo laakiin date-keega hadduu sax yahay waa kii saxdaa weeyaan countryga lama soo qoran operationka nooca ku jira waa maxay waa Windows 7 kamaradu available maaha antivirus wax antivirus kuma jiro horaan u sheegay inaan maxay heedanay antiviruskan loo galay inta aynu ku gaari karno computerkaas waa 0.09 weeyaan millisecond ayaan ku gaari karnaa waxay tilmaamaysaa inuu aad aan aad u gaari karno active-ka systemka active-ka ay sheegay okay haddaba maadaama uu helnay systemkeeni viruskeeni inuu rangareeyey maxaan samayn karnaa waa ujeedada videoga aynu samayn waxaynu samayn karnaa wax kasta oo systemkaasi macquulka ah maxaa ka mid ah right click haddaad halkan ku dhufato kan ugu sareeya waa manager baa ku qoran optionkan managerkii wuxuu ku tusayaa serviceska victimkaaga ka rangaraysan tusaale ahaan waa kuwan serviceska systemkaaga ka rangaraysan halkan serviceska seed ku ogaan kartaa haddii aad halkan tagto ood ku dhufato services waa dhammaan serviceyada halkan ka rangaraysan wuxuu kaa siinayaa isla halkan ayuu iga siinayaa servicekan rabo ayaan ka bologalayn karaa processka iminka systemkeena u daaran systemkeena processkiisa waa processkan halkan ka daaran weeyaan halkan processka ka daaran weeyaan tusaale ahaan hadda waxay furan Google Chrome laakiin processka haddaad rabto inaad ogaato waa kuwan processkii waa kuwan Google Chrome ayaa ugu sareeya halkan Google Chrome-kii ma ku haynaa Google Chrome halkan ma ku haynaa waa kan yes Google Chrome-kii waan haynaa Google Chrome baa u daaran waan ka xidhi karnaa waxaan samayn karnaa kill ayaan ku samayn karnaa processkaas xid delete gare restart ku samee wax walba ku samee registerkiisa ayaan heli karnaa sidoo kale halkan haddaad right click aad ku dhufato file ayaan u diri karnaa diskigiisii halkan waxaan ku samayn karnaa remote ahaan ayaan ula socon karnaa waxa uu systemkaasi samaynayo halkan iminka muuqaalkan yar waxaad ku arkaysaa computerkaasi mid kale maaha waa kan victimkeena weeyaan halkaa window baa ka daaran haddaan windowgan xidho halka dib aad ku soo noqoto windowgiini close ku samee windowgii waa kan la soco window waan soo xidhay bay ahayd yes waa kaasuu is xidhay remote ahaan ayaad u daawan kartaa wax kasta oo uu systemkaasi samaynayo targetkaaga ah okay sidoo kale halkan waxaad ka samayn kartaa keyloggerkii microphone-ka ayaa jira oo haddii aad rabto inaad dhegeysato waad ku dhegeysan kartaa passwordskii ayaad halkan ka helaysaa passwordada helayso waa maxay waa any password systemkaasi iyo username meel kasta oo targetkaaga uu sameeyo ayaan heli karaa halkan iminka tusaale ahaan haddii aan taasi aynu tijaabino khadkaan yar furanaya waxaan leeyahay Google Chrome ka isoo qabo Google Chrome okay waxaan leeyahay sign in baan tegayaa ayaan tegayaa yes gmailkii waa toos baan gmailkii u tegay halkan waxaan gelinayaa gmailkeyga qofkii victimkeyga war iskama hayo gmailkiisa ayuu saani geliyay waxaan tusaale ahaan kasoo qaadayaa keliya gmail.com inuu yahay kasoo qaad nagas ayaan leeyahay gmailkaas wax saxan maaha mid saxan oo kale aan yar geliyo tusaale ahaan waxaan gelinayaa cabdi oo kale ayaan gelinayaa cabdi 123@gmail.com ayaan gelinayaa passwordka ayaan gelinayaa cabdi aanu ma garanayo waan iska geliyo cidnaba aanu ma jeedo waan iska geliyo 1234566 ayaan gelinayaa nagas ayaan leeyahay ma jiro kolley waan hubaa ma shaqaynayo laakiin waxaan uga gol leeyahay inaan kani aan idinku tuso so waxaan leeyahay weli ma haysaa no ma hayo okay yes weli ma hayo
ma hayo weli laakiin systemkeena waxa kaloo aynu ku heli karnaa passwordka haddii aad iminka keyloggerka oo kale passwordkaasi waa passwordada u save garaysan weeyaan waa kuwaasi waa kuwa ku save garaysan Google Chrome-ka markaynu isticmaalno Google Chrome-ka waxaynu sameynaa passwordka noo xafid baan idhaahnaa kuwaasoo dhan ayaan ku heli karnaa laakiin haddaynu rabno dhaqdhaqaaqiisa applicationisku imika isticmaalayo keyloggerkaynu ku ogaan karnaa keyloggerka ayaynu ku ogaan karnaa waaba iga soo horeeyay keyloggerka waxaan sameeyey waa kan test.0. wixii aan tijaabiyey emailkii aan geliyey iyo passwordkiisiiba waa kan mar labaad haddaan email kale aan ku eego san halkaa u xaqiijino waxaan ku eegayaa marka kani fadxii 1 2 3 4 5 ayaan ku eegayaa fadxii inuu jiro emailkaasi ma ogo laakiin waan iskaga eegayaa un horta waxaan ku soo celiya mar labaad waxaan leeyahay sign in okay fadxii ma jira fadxii 1 2 3 4 at gmail.com naga sayaan leeyahay ma jiro fadxii laakiin Facebook baan ku eego marka kani Facebook ayaan rabaa inaan galo Facebook ayaan leeyahay facebook.com ayaan leeyahay okay geli ayuu leeyahay halkan waxaan gelinayaa abdi ayaan ku eegayaa abdi 1 2 3 at gmail.com passwordkiisa ayaan gelinayaa 1 2 3 4 5 naga sayaan login ayaan leeyahay uma baahan inuu noo shaqeeyo laakiin halkan haddaad kusoo noqoto keyloggerkiina waa kan halkan haddaad kusoo noqoto refresh aad tiraahdo halkan maxaad ku arkaysaa waxaa la tegey Facebook waxaana la geliyey waxaa soo baxay pagekii loginka ahaa waxaana la geliyey abdi@gmail.com wax ku badbaaday oo victimkii uu badbaaday macala username iyo password ah ma jiro waxa kaloo samayn karnaa intaa wax ka khatarsan oo la samayn karo ma jirto kol haddaad wixii aad ka rangaray wixii u rangaraysnaa aad qaarkood ka xidhi karto qaarkood aad u furi karto halkan hadda ugu soo aada windowga iminka active-ka ah ee systemkii victimkeena waa kee waa login waa Facebook waa Google Chrome weeyaan haddii aan xidho taasi meesha way ka baxaysaa haddaan xidho taasi meesha way ka baxaysaa okay halkan haddaad kusoo noqoto iminka halkaas way isbedelaysaa mar walba waxay tilmaamaysaa wax window jira ma jirin halkan zero ayuu soo saaray haddaan wax kale aan furo wixii kale aan soo furo ayuu halkaas soo dhigaya sidoo kale waxaynu samayn karnaa chat ayaynu furan karnaa magacayga ayaan gelinayaa magacayga hackerka ayaan gelinayaa waxaan leeyahay hacker buu ku daa okay ayaan leeyahay waa qofkii hackerka ahaa waa connected weeyaan assalaamu calaykum ayaan u dirayaa victimkayga waxaa halkan ka dhaca u fiirso halkan hacker assalaamu calaykum wacalaykum assalaam chat baan ka samayn karaa u fiirso halkan waxaa dhacay halkan u fiirso wacalaykum assalaam waa cajiib inaba caadi maaha softwarekan loo yaqaano injiraad fayraska awoodda intaa leeg leh ayuu samaynayaa sidoo kale waxaan ku samayn karnaa halkan haddaad u fiirsato waxaan ku samayn karnaa serverka waynu iska xidhi karnaa waxaan ka wadaa attackan iminka aynu samaynayno waynu xidhi karnaa haddii aynu idhaahno server deetana aad disconnect aad tiraahdo waa ka baxayaayo wuxuu noqonayaa maxay fayraskaasi inuu disconnect oo dee uu connectionkii aad markii hore haysato uu halkaasi ku burburo halkan kaloo waxaad kaloo waxyaabahaasoo waxyaabaha intaa leeg oo dhan ayaad ku samayn kartaa serverkaaga kor haddaad passwordkaad heshay oo processkaad heshay waxaan filayaa waa halkii ugu muhiimsanayd inay tahay markaa muuqaalka kan intan ayaa kusoo koobayaa waxaad leeyahay haddii aad ilaa halkan aad ila soo gaadhay ha ilaawin channelkeena inaad kusoo biirto sidoo kale muuqaalka inaad like saarto wixii waxbixina iyo macluumaad aad u baahan tahayna qaybta commentiga iyo assalaamu calaykum waraxmatullahi